أمير خان أو أنصدي نينكي محمد أمير حسين خان المسلم كها اللي قرن أوجا أمير خان أيها أنصدي حبوا أنصدي محكو أنصدي مؤنسي خليجك يا بدري مكي رياض مكي قدر مكي بحرين مكي محكو أنصدي حتى بكوا أنصار شيء قردن كم أنصن حتى كي عاداني يكون أنصن وحكو أنصدي كي هندو قرمونا حماء يكون أنصدي سقني نوصلنا عرفتي قدم جلم يلم جلم قدم برن جلم مرن جلم ومن جلم taas ay ku unsaday isagoo nin muslim labada kun ilaa ilaa tanka unsigaas ay ku gabagabay nin wax ku gabagabay isagoo unsigaas ay ku gabagabay inna la raji'un xitaa iminka marsiyo lama sameyn karo oo lama oran karo de shaqadiisa ku jirtay waxaan oo iska acting iyo film iyo wax noocaas iska ahayd lama oran karo isaga intuu xafiis furtay shirkadiisa ayuu de waa kuwa dadku caadiyan ama sadaqa iska bixisada ama de iska ducaysta ama laba ragcadood iska tukada yaa ducadii xaqu mala masaajidka khaldamay xaqaas intuu aad la koofiyadii yarada bacda hinduugana uu qaatay alaabtiisii buu xidhay yaa xaaskiisii hore Kiran Roy bay israaceen ninkiiba kamaradu waxay qabteen isagoo hawshiisa ku jira hawshii adag طبعاً آدي أي تذكر ولا مرارة اللاعين إلا إنك وحلا جابينها محاكو كلف كرا محاكو قصب كرا واللي بيسقو وانين صاع عمرايستي وانين صاع حد شيء وانين إلى هو يدي أوكحيي وانين معنا أنت أوفين سوم تلي أو حيابة رقمية الدين يوحوق في أنلقو أرق السقو ما أنت عليه وحن ما قد شري عمرك أقول تجي أفلكم السقوتيو أمن خم حاجة ما على فلاي maxaa falmiya jire markan karan waxba jire farba godantay macquulba ma baahaba yaa dadku laakiin waxay u badiyeen hinduugii la wada loo galiyay sheesan khaan iyo masaakiintii rootisa la isaga calaqayee sharuq khan isaga laftigiisa waa kaasa loo haysto oo hees iyo filim wax aan macquul ahayn baa lagu haystay midab iyo wadin soo sheekayn doona taas video ku xidhi insha Allah مسلمكي baa sidaas ma garanaysaa cadaadis badan baa lagu hayaa marka baqdin uu ka qabo miyuusa isu duleyn lahaa maya baqdintu intaas oo dhaqab waayay maxamed ku kalifaya filmadiisa u shaqeyn waayay miya maxaa ku jira wallahi la garan maayo arinka wax ku kalifay ninkii odayga ahaa Amir Khan wax meesha la soo dhigtay ma ahayn bal arinka aad baan ugu sii kurgalay hadaba أمير خان ما دام ينان ولي سفي عنانا أسوق هذا سيد ما يستران ما أنت حدوني إنه حوجا قصة دي سان دول مراسي أصحاب قيمة بدن وأنت يسوي تيني سيق لفتو قد تشرا نلوشي سا إنه حوجا أمير خان ما تسوق هذا نينا متى أنت هذا سيئة لان واسرح سينا يا مات أمير خان لقى مرة معنا إني كمانين وين إيه إلهي بويني لكن حوجا حسكو دينا سوقه إنكان أمير خان سنو وضع نقانو أكتر ويه سيداكل هو بروديوسر سيداكل هو دايركتر waxaana lagu magacaabaa oo lagu naanaysaa sida ogsoontiin master perfectionist oo la macnaa yani ninkani dhowrkiisanaba hal film buu keenaa filimkiisaasina waa filim qiso xambaarsan oo aad u wanaagsan oo aad iyo atayadiisu aanay ahayn wax la iska sameeyay waqti qaadatay 2 sano iyo mar maqnaada ساسارت مقعوق بحي مربو يمادا مركاو يمادان وحبو الله يمادا دردان له فيلمديسا دي عادي maaha wada garanaysa Amir Khan intii sheeg maayo filimka dangal ya filimka lagan filimka gulam filimka raja hindustani filimka akele hama akele tum filimka qiyaamad si qiyaamad yani filimadiisa Amir Khan iyada idin sheeg maayo wanina wada garanaysan لكن أمير خان وحلا شيء فيلمديس وقصي خطرسن فيلمديس لو في عينك لكن كويس وقصي خطرسن إلا عمامتيس دبل لوجو توري وحاكم ذا جاتني وفيلم كان وحنقولي دور كفراد مضحك ساري مرقاني كي هي سيدا قالوا فيلم كإريادس أما تري إريادس فيلم كاس إنه بعد ما قصديس إنه بعد ما هو ذكرنا إنسان وفيلم إنه كوليستي
Doom 3 isna waa xaalad kale xaalad kale aan laga filayn ayuu isna ahaa Amir Khan filna ay soo mataleen ilaa maanta ku dhaarshay Hrithik Roshan oo inta dheer leeg Abhijay Bachchan oo inta dheer leeg kii kale ku ahaa John Abraham oo inta dheer leeg miyaad islahayd Amir Khan ba yani meel kaga dhacaya filmka oo wuxuu ka keenaya haddana waa la istaacjabay filmka wuxuu ka sameeyay يعني ده اسكو استيلنا dadkaas maaha isku qaabna maaha isku dharna maaha isku awoodna maaha hadana يعني waa sababta loo yahay master perfectionist waa يعني ninkan waa nin culus imaamadiis lama haysan karo sidoo kale filmka PK hadda ogow hintiidan imika ka hadlayay filmka PK ayay ku kaceen Amir Khan oo lahaayeen yani filmka qisadiisa waxa weeye hinduudu meel kaga dhacaya yani hindidii uu shalay toole yani kusoo duulayay muslimiintuna ay lahaayeen war waa guud saaha ku wado sida la sheegay hindidu niyadda ka jabiyay muslimiintu niyadda u dhisay maantana muslimiintu qalbigooda sankorta ka dhigay hinduudii uu wax ka dhigay oo madaxoodii meel sare geeyay maadaama dawlahoodii ninka odayga hayo bofiyad yarad bacda haydi laab wixii adigu awlihii uu iska qaatay heriyadoodii sidoo kale filmka cajiibka ee shanta film ugu horeeyay filmaysa waxa kamid ah Dangal filmka Dangal habeen waxaan daawad film la yiraahdo beerkaas ee casaaday filmkaas soo daawada beerkeeda casaanaya waayahay maanta waxaan doonayaa markaa inaan soo qaadano Amir Khan waa kuma Amir Khan muxuu ku xunyaa muxuu ku wanaagsan waa qof bini aadana ka filo xumaan iyo wanaag waa qof bini aadana okay marka xumaantiisa wanaagiisa aanu maanta mid qaran maayo waxyaabaad la yaabi doontaan soo wada saran doontaa oh my god Amir Khan ma noocan oo ahaa muujikan oo lahaa iyo waxaad oran doontid waa ka filaynaniyo ninkaas inaanu saa aanu hay okay aan bilaabo sheekada Amirow ani kale waxa iga qanciya marka laga yimaado filmadiisa jacaylka iyo qiimaha iyo tayada ay ku dheehan tahay oo aan cidna diidi karin ani waxa shakhsiyan khaasatan is qanciya qisadiisa jacaylka Amir Khan filmo badan oo jacayl ah ayaan ku soo baranay waxa la sheegaa filmada jacaylka ee khatarta ah aad soo wada aragtay markaad aragtid iyo marka jacaylka dhabta ee noloshiisa soo maray aad aragtid inaad filmadan aad oranaysid in yarka ma gaaraan qisooyinka macna filmadan film on iska maaha war qisadan kun iyo boqol ka jirbaan ku qisadan ama qof ku dhacday anay ku dhici kartaa aday ku dhici kartaa in adeerkeen hawradaageen aftigeen tolkeen qaraabadeen qasaxeen cidun bay ku soo dhacday hada ma fahameysa marka Amir Khan sida la sheegay gabadhiisii ama jacaylkiisii ugu horeeyay uu jeclaado waxay ahayd Reena Dood waa gabadha oo macnaha jaarbe markii hore ahaayeen baa la yiri sida la sheegay jaarbe ahaayeen daaqadaha ayay sida filmada fariinta iyo signalada iskaga bixin jireen hase ahaatee iyadu caadi bay isaga u arkaysay waana la yaryaraa isagu laakiin waxay ka taagneed yani halkii u dambeysay wax badan buu isku dayi jiray inuu jacaylkiisa u sheegto laakiin way ku diidi jirtay heer wuxuu gaaray inuu intuu dhuuxa qalinka intuu soo qaado oo dhiiggiisa ku shubo oo ku qoro adduunyadaydii Reena ifkaygii Reena aakhiradaydii Reena waxaygii oo dhan Reena aad baan ku jeclahay khadkan casad imika arkaysidna maaha khad qalin oo caadiya ama fiimto ee waxa weeye dhiiggii halbowlahayga waraqda waxaa ku soo qoray Amir Hussein Khan oo aad tahay noloshiisa fariintaas gaadhay Reena maxay tiri halkay jacaylkiisa ka soo dhaweyn lahayd wayba sii maagtayba bila akhlaaq baa tahay naacas baa tahay waxaan kale ka mudnaa adoo ku xanaaqtay way maagtay waxa martaba aniga ay la iman ilaa qalbi ka sii jeedaba iska ahayd nafsoo jecaysa maahayd adoo markii dambe waniya jabay dib uga gurtay scriptkiisu xishiri waad imika bas ku sii dirtay adoo bariye kadib ayaa waxa dhacday inay iyana u soo jeesato oo istiraada ka yara daaqada maalmahan ma soo taagnay xaasi waa lagu dhibcayana iyana waa lagu dhibcay buu qaadsiiyay xanuunka isaga ahaa wuu qaadsiiyay fayraska jacaylka ayuu qaadsiiyay
sidii bay markaa waxay isguursadeen taariikhdu markay ahayd bishii abriil 18keedii 1986 halkaasi markaa labada caruura ay isugu dhaleen oo la kala yar Ira iyo Junaad jacaylkoodii wuxuu noqday mid laga yaabay taariikhda galay hadalhayntiisa ay aad u dheeraatay hase ahaatee in ragow abaha la janay Amiir mar walba waxa la sheegi jiray inuu adirashooyinka u xiriir la leeyahay in uu xiriir hoose leeyahay kan xantiisa ayaa cirka u baxday oo naag ma tahay adirshad ma tahay ayuu kaga dhigay dumarkii laakiin wax xaqiiqo oo sawir laga soo qaaday oo cadayna ma jirin laakiin mar walba hadal hayn heblaayo la xiriira kadib buu la xiriira kadish buu la xiriira gabadhii ila isaga markaa hore jacayl badnaa sax isaga gabadhan soo xiriir galiyay sax de waxay ka sugaysay jacaylkii markii hore mid ka badan ila iyada haday hor jeclaan lahayd waxay saaran lahayd ninkan aadaaba hor jecaystaji ma garana laakiin isagaas jacaylkiisi walida ilaa dhiigii dhuuxi wixii meeya bay leedahay anagu kala wad bay tiri markaa muddo 15 sano kadib 16 sano kadib ay kala tageen waxay kala tageen 2002 16 sano kadib noqotay 86 bay iskursadeen okay markay saa u kala tageen laakiin sidoo sheegay aad buu uga xumaa aad buu uga dhibtoonayay laakiin xiriir hoose ayaa la yiri buu lahaa mudeer kadib furninkoodii kadib waxa la ogaaday gabadh Jessica Hennis la yiraahdo inuu xiriir la yeeshay oo inta hore uu la lahaa dadku xantaan gabadh reer London bay ahayd weliba kaaga darane waxa la yiri oo la sheegay oo warbaahintu ay bariga galbeed fikirtay in ay ilmo yar u dhashay kadib ilmaha markay dhashayna way carartay Londonteeda ku noqotay ilmihi halkaas ku korsay ilmaha yar xitaa la yiraahdaa Jam bal gulay Jam ba magaciisa la yiraahdaa wax run iyo wax ku beenta ka garan mayno laakiin gabadha waa lagu sheegay laakiin soo sheegay wuxuu yiri marka reena kala tagnay qalbigayga jabay muddo 3 sano xiriir ma yeelan kaliya baan iska ahaa laakiin 2003 bay kala tageen ilaa 4 ilaa 5 waxay isbarteen gabadhii imika ay kala tageen Kiran Roy bay kala tageen Kiran Roy ay waxay isku barteen filimkii Lagaan filimka markaa Kiran ay filimka Lagaan fadaxad ka ahayd caawiye director ka Santosh bay waxay u ahayd caawiye u ahayd markaa waxay sheegtay in ay isnad markaas uu kala dareemay muddo 3 sano xaasan uu lahayn naagna uu la hadi jirin xoogaa uu aad u murugsanaa inkastoo xaaskiisa si sharaf leh ku kala tageen wana ku kala tageen yaani aan isjiijidan sida dadka qaar ay si sharaf leh ku kala tageen haddana wuu iska niyad jabsanaa sidii baan isla jaan qaadnay isfahanay saaxiibaan noqonaysaa isku kursan 2005 markaa isku kursadeen inaan asad la yiraahdo isu dhaleen asad Roy Khan bada iyada magaceeda ku dartay hadhowna magaciisa Khan yani labadooda magacoodu wata ina keer farba ku godan malaabisnimadiisa suuqa oo qalaaday muj haddana iyaguna waxba isla ma sii socon inkastoo muddo far badan isla socdeen muddo iyadan labtigeeda 15 bay imika kala tageen adigu laakiin markaa muddo 12 sano ah meelahaas xiriirkoodii jacaylkoodii guurkoodii kadib way kala qulquleen iyaguna laakiin waa saaxiibtinimo wanaag uu ka dhaxeeyo wada shaqayn iyo waxaas ka dhaxaysa laakiin naag isma aha xataa gabadhiisa hore si sharaf leh ku kala tageen Reena oo waxa lagu leeyahay baltay filimka Lagaan oo ay gabadhan isku baranayaan iyadaaba qarash garaysay iyagoo kala tagay Amir Khan iyo Reena ay haddana qarash gareynaysay يعني كله قرش كرني سلا وكنا كله قرصدي إذا مركا حسلاد ملا عرض هذا أبوهد مسد وانا كدحي وحلا ولا إذا وحلا لا يعبوا حوي هلا معنا دسيس وانا سنة يعني ناقد سوينا سنة هذا يسوون بعد خلاص حق السكاي مريان طبعا دوينو أرقنا أوكي إمكا وحن مرينا كليب كنا قيبته قدام بيسي لكن هو هادي وهالكي قدمت أين مرينا وهالكي هي قدمت أمريكا أنت إنك سو شيكين يردم ووتي أنا حين تيدي قزم يلا من ضمن قدم وحاس أنا حين لكن أنت كلا وحي فري وحي شعلاني وحي يردم ووتي أوكي لكن قصة إمك أنت أنا يسوضه وأنت يعني يقول حمد أنا أمريكا كمغلو وأنت يقول حمد أمريكا كمغلو أم حيت هاي أمير خان waxaa la dhashay in la yiraahdo
محمد فيصل حسين خان. فيصل خان نين فيصل خان فيلم بدن ممثلين فيلم يربو ممثل 3-4 كما بدنا أولي بقى اسكدور عاوية حكاية على هل فيلم بالي لا تركيه فيلم دهره لكن وحو عام فيه لكن وحو عام فيه فيلم كاملا أي أمير خان ولالك وكلتشرو يتويك الكنا وكلتشرو يا فيلم كاس منكوب يدقية معنا ماشي دتك والوالين هاي كنا بدن لسيه سيدا فيلم هذا عدبو واسيدا لغشيغي معنا ولالكي نولوشي سيب والله سيدا دقي هل كوركو سقاد لها أيو لسي دادق ولي وحو قد داري وحي هانتي أي لهايان ريركو إلا وحبا كدحيي هانتي دي ريركا دي أمير خاني ريركو ده وحي أردن إساقا اسكو قراي أمير خاب اسكو قراي سيدا لغشيغي إساقا وحي رشيلين يعني دووين كي سوي ديه يعني كيف وحو كدغay nin waalan ba tabti filka nin waalan bu kadhigay waxba ku fadhiyin oo wax walba burburinaya maxuu sameeyay marka Faisal oo si waashaba caadi uga dhacay hada Faisal Khan kii filka khatarta meelaha aad ku daawateen ee khatarta ahaa dad badan baa ninka darti u daawanay filka gees burqaan iyo khatarnimadiisi iminka bal soo noqday bal eeg takala ayaa waxay tahay inanki markuu sida u xumeeyay filmadan dambe uu keenayo oo dhan war ma filinka BK-ba war ma filinka Doom-ba ka nacasnacaska ah war ma filinka aan xitaa iminka maalin daawaday laal siinba war ma filinka talo 3 idiot ma garanayo filinka af Soomaali kuma daawan hindina kuma daawan ma garanayo laakiin saas nacasnacas wiilayga almuhim nacasnimada maartay filmada aan ka soo shaqeey ku jirtaa دوم تومي كا خلدميا كا خطرت iyo ka nacasnacaska nin ka khaldamaya ninki Faisal Khan waa noocaas marka sida la sheegay waxa la walaalkii uu soo koobi karayaaba walaalkii Faisal Khan sidoo yahay noociyadu yahay ayuu inoo soo turjumaya daba weydinkaas bal eega bal weydinkaas miyaanu jilayn walaalkii ilaahay baan idinku dhaarshay marka labada muuqaal ay isku aragteen miyaadan yaabin fikirkaaga hore wax ma isbedeleen maxaad fahantay ma fahantay in Amir Khan walaalkii u ciyaar ka dhigtayba walaalkii muxuu dareemay muxuu si dareemayaa qof noocaad ahayd yani shaashada la soo fariisanaya ila walaalkii uu arkaa doqon buu noqday noloshu ka dhacay duweyn badan buu qaatay waa ka noocan uu noqday walaalkii uu film ka sameeynayaaba waa sida dadku u badiyeen inaga oo garaaleena aan fahmayno de aragnaba walaalkiiba laga ma yaqaanaba Faisal Khan وكتير كوريكي سوشيال ميديا سجلت تجي صور بهنتو شاقو حيري ولكن ويحمي كوريكي بيجا سعر قف وعلم يقول تمامي دكتور لقي دوين قلدم فلسي وان سلعة وان دبتوضي هنتي تيدو يجا فرمروتشي waxba imu garab istaagin waxba imu ta inuu xitray iska daayay anigu nin waalan igu tilmaamay anigu dhakhtarku waalida ii diray anigu hantidayda iga farmaroojiyay waxaan la noolahay ma jirto inankiide ila Faisal Khan wad garanaysaa soo ka noocan noqday filka Doom 2 and Doom 3 miyaha waa Amir Khan matalay qaybtii nacaska ha labada mataana kii nacaska ha lagama yaqaantay filka BK filmada ay soo sheegay oo dhan marka wuxuu yiri noloshii moral iyo maskax way ka ciyaaray marka ciirkii film muu sameeyay dad badan baa garab galay film factory la yiraahdo dadkii oo dhan ay ka heleen ku dhiirigelinayeen oo ilaahayna Amir Khan qof xun ma wanaagsan walaalkii maradu saa ula dhaqmay walaalkii saa u xumeeyay isagoo maanta ninka heerka maraya walaalkiina sidaa yahay xaq ma aha waxaas dad baa caawiyay hooyadii wuxuu xitaa iga xoogay hooyay ku dirayo iska jeclaysiiyay yani moral hampu dan buu noqday Faisal Khan ka naxay wallahi iminka eeg walaal iminka eeg hooyadii markuu soo kaxaysto anu inta aad baan ka qeyrooda hooyadii inta soo kaxeeyo filmka uu sameeyay heesta ku jirta heesta isaga codkiisa ah hooyadii soo kaxaynaya ilaahay xariijana ka waraabiyo hooyada macaan iyo dhamaantii hooyo dhimatay hooyadii markuu soo kaxeeyo ayuu meesha la imanaya studioga markuu la yimaado ayuu de hooyadii dhageysinaya heestiisii iyo inuu horumar gaaray iyo inuu hore u socday hooyadii ku farxaysa dhiirigelinaysa hooyadoo qaali marka saas u gartay walaalkii qisooyinkaas aan ka soo sheekay waa xaqiiqo jira
idinkana bal fikirkiina kasoo dhiibta Amir Khan se waxaas miyaad ka filayseen. midda labaad ee jirta ayaa waxay tahay in Juhi Jalwa iyo isagu aan muddo 7 sano aan wada hadlin. sababtuna waxay tahay filimka ishq markay matalayeen ayaa waxay ku sameeyeen isagii Ajay Devgan brankigan iminka dadkan ay leeyahay waxa brank lagu sameeyay waqtigaas brank ku sameeyeen baa lagu leeyahay oo ka xaraabaysteen Asia Juhi Jalwa xasuuso filimka qofkii daawaday brank filimkaasna wuu ku jiraa sida xaqiiqda oo markuu heer aakhiraadka iska dhigay Amir Khan xasuuso oo ku ciyaaray filimka dhexdiisa oo ka khaakhis iska dhigay ka cabsina markay fareenka u jarto filimka ishq baan ka hadlay Ajay Devgan iyo kaajili ku jiraan brankiga ay sameeyeen mid kale live oo caadi ah filimka ahayn bay ku sameeyeenba wax la caradii ay bariga halka ka qaaday lama bahadlin marka waqtiyadaasna Shahrukh Khan ba soo baxay Shahrukh Khan ba ay isku fiicnaadeen Juhi Jalwa tii Amir Khan lagu dacaydin lahaa nin yar oo Shahrukh Khan la yiraahdo soo baxay oo dardartiisa wata oo Juhidaadina kala waraagay Juhi isaga isla soo baxeen say kula tahay haduu sir giijinayo lahaa aniguba habla badan baa la matala warmila iyo maxay sheegaysaa macnaa Juhi waa dirshada qofkii doontay la matalaysaa wato lahaa marka Amir Khan sheekadiisii dabcan dhamayn mayno laakiin maanta intaas aynu soo koobiya aad baad mahadsantiin kaliya la baxaan wali iyo mar walba iyo mar kasta aan idinka mahadcelinayaa sida aad kanaalka aad kor ugu wadaan like-ta waa mid aad iyo aad ii farxad gelisay kilibkii u dambeeyay like-ta asaarteen لا قياس ولا ما قياس كرو سبسكرايب تا كومنتيga fikirkiina waa muhiim aad baad mahadsantiin aniguna wixii codsiga oo idin jooga thank you very much